السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا سو دhowaada walaalayaal kuna soo dhowaada xalqadeena Bookmaal Podcast oo ah safar aqooneed oo aan ku eegayno buugaagta ugu saameynta badan dunida inagoo markaa buug kastaba ka qaadanayna casharada ugu muhiimsan ee aan isleenahay dhalinyaro badan noloshooda wax fara badan ay ka bedeli karaan. sida daraadeeda xalqadeena maanta insha Allah waxa aan ku faaqidaynaa buug aad muhiim u ah oo loogu yeero magaciisa Rich Dad iyo Poor Dad, aabaha hodanka ah iyo aabaha faqiirka ah. buuggan waxaa qoray qoraaga loo yaqaano Robert Kiyosaki 1997 ayay markii ugu horeysay buuggan la qoray. laga soo bilaabo waqtigaas ilaa iminka 40 milyan oo buug ayaa buuggan laga daabacay. in ka badan 40 milyan oo qof ayaa buugga akhristay. luqadaha lagu turjumo buuggan waxay gaarayaan ilaa iyo 50 luqadood. qoraagani waa qoraa aad caan ugu ah arrimaha maalgashiga ganacsiga. wuxuu qoray ilaa iyo 26 buug oo kala duwan. buugaagta uu aadka caanka ugu yahay ee uu qoray waxaa ka mid ah buuggan hadda anaga aan faaqidayno ee Rich Dad iyo Poor Dad. buugga kale ee loo yaqaano The Cash Flow Quadrant iyo buugga loo yaqaano Rich Dad's Guide to Investing iyo buugga u dambeeya ee loo yaqaano Increase Your Financial IQ. buugaagtan ayaa ah buugaagta ugu caansan ee qoraagu uu qoray, laakiin si guud tirooyinka buurta uu qoray ilaa 26 buug ay gaarayaan. qoraagan Robert Kiyosaki waa aasaasaha iyo milkiilaha shirkaddan loo yaqaano Rich Dad Company oo ah shirkad tababar iyo waxyaabaha maalgashiga la xiriira aad u bixisa si loo soo saaro aqoon-yahano aad ugu xeel dheer arrimaha maalgashiga. qoraaga buuggiisan waxa uu isku barbardhig ku sameynayaa qaab fikirka laba aabe. midka koowaad wuxuu ugu yeeraa aabaha hodanka Rich Dad, kan kalena wuxuu ugu yeeraa aabaha faqiirka ah Poor Dad. wuxuu isbarbardhig ku sameynayaa qaab fikirka labadan aabe si markaa uu u jiheeyo wacyiga iyo fakarka iyo garaadka akhristaha iyo qofka doonaya inuu sameeyo maalgashi ama dhaqaalihiisa wax ka bedelo. labada aabe ee uu isbarbardhig ku sameynayo qoraagu mid kastaba fikrad gaar ah ayuu aaminsan yahay. aabaha hodanku waxa uu aaminsan yahay inuu hanti dhisto, aqoon maaliyadeedna markaa uu yeesho. wuxuu aaminsan yahay inay jiraan fursado mudan in la maalgashado. ideolojiyadaas ayuu aaminsan yahay aabaha hodanka ee loo yaqaano Rich Dad. aabaha faqiirku waa shaqaale caadi ah. wuxuu jecel yahay shaqada joogtada ah ee bishii mushaar uu ka soo galayo. wuxuu aaminsan yahay sidoo kale in shaqada joogtada ahi ay tahay dariiqa guusha. kumana fikirayo haba yaraatee wax la yiraahdo maalgashi iyo sidoo kale in uu samaysto koror dakhli oo yacni dakhliyo fara badan inta investment badan sameeyo si dakhli fara badan u soo galo. fikirkaas iyo ideolojiyadaas oo dhanba kuma jiro aabahan faqiirka ah. bilcagsi waxa uu jecel yahay in markaa uu shaqaale caadiya iska noqdo, shaqada joogtada ah uu ka shaqeeyo, mushaarkiisana markaa uu sii kororsado. fikirkaas uu markaa uu asaguna ku dadaalaya. halkan waxaan ka fahmaynaa markaa labada fikir ay kala aaminsan yihiin labada aabe ee buug uu ku salaysan yahay ee Rich Dad iyo Poor Dad. waxaan soo qaadanayaa ilaa iyo 30 cashar ee ugu muhiimsan buuggan si markaa aan uga faa'iidno wacyigeena dhanka maaliyadda iyo dhanka ganacsiga markaa uu u kabco. sida daraadeeda markaa waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad soo qaadato buuggaada noodka si markaas aad ugu qorato wixii fikir iyo ideolojiyad ah insha Allah ayaa halka aan kusoo gudbinayno. intaana bilaabin ka hor marka saaxiibayaal waxaan ku dhownahay hadafkeeni koowaad ee 5,000 wax ka yar ama wax ka yar 800 oo qof ayaa inooga dhiman. insha Allah inaad gaarsiisaan ayaan rajaynaynaa. inagana markaa dhiirigelin ay inoo noqon doontaa. aadan u mahadsantihiin. buuggan waxaan ka faa'iideynaa oo uu xoog saarayaa dhiirigelinta fahamka maaliyadda, inaynu fahanno maaliyadda iyo qaabkii u shaqeyso. wuxuu sidoo kale xoog saarayaa maalgashiyada kala duwan iyo sida ugu wanaagsan ee wax loo maalgashado. sidoo kale wuxuu xoog saarayaa buuggaani xirfadaha ganacsiga ee kala duwan. haddaba waxaan soo qaadanaynaa 30 cashar ee ugu muhiimsan buuggan
si markaa aan ugu dabaqno nafteena. cashirka koowaad ee buugga aan ka qaadan karnaa waxa weeyaan qoraagu waxaan ugu dhiirigelinayaa fikirka ah maalgashi inayna wax maalgashano oo ay ganacsi abuurano halkii aan ka fikiri lahayn shaqo oo keliya. qoraagu wuxuu leeyahay dadka hodanka ah ee nolosha guusha ka xaqiijiyey waxa ay xoogga saaraan inay wax maalgashadaan oo ganacsiyo kala duwan abuurtaan, halka dadka faqiiriinta ah buu leeyahay ay ku fakaraan inay shaqo wanaagsan iyo shaqaalayaal wanaagsan oo keliya markaa inay noqdaan. cashirka labaad ee buugga aan ka qaadanayna waxa weeyaan inaynu fahanno aqoonta maaliyadeed inay tahay furaha. qoraagu waxa uu leeyahay inaad fahamto aqoonta maaliyadda, qaabkii u shaqayso iyo qaabka loo kobciyo waa furihii hantida. sidaa daraaddeed waxaan ugu dhiirigelinayaa inaynu ku dadaalno fahamka aqoonta maaliyadeed si markaa aynu u noqono kuwa dhaqaale markaa abuura. si markaa aynu u fahanno aqoonta maaliyadeed waa inaynu baranaa buu leeyahay qaabkay u shaqeeyaan cash flowga. cash flow waxa la yidhaahdo iyo qaabkii u shaqeeyo insha allah gadaalan ku sharxi doonaa isla buuggan. waa inaan fahanaa buu leeyahay canshuuraha qaabkii u shaqeeyaan, qaabka canshuuraha la iskaga yareeyo, qaabka canshuuraha dhaqaale looga sameeyo, iyo sidoo kale maalgashiyaga markaa inaan fahanaa qaabka wax loo maalgashado marka wax la maalgashanayo, shuruudaha ee muhiimka ah, qaabka maalgashiga faa'iido looga sameeyo, khataraha maalgashiga sida la iskaga ilaaliyo. waxyaabahaasoo dhan buu leeyahay aqoon maaliyadeed bay hoos imaanayaan. marka waa inaynu fahanaa buu leeyahay aqoonta maaliyadeed marka inay tahay furaha, waa inaynu ku dadaalnaa. cashirka saddexaad ee buugga aan ka baranayna waxa weeyaan maalgashigu waa hantida wax soo saaraysa. qoraagu waxa uu leeyahay inaad shaqo keliya aad ka shaqaysaahi noloshaada uma wanaagsana. sidaa daraaddeed buu leeyahay qofku mar alla markuu wax maalgashado waa in maalgashigaasi marka uu wax soo saarayo. tusaale buu leeyahay guriyaad iibsatay, guri markaad iibsato gurigaasi hanti joogta ayuu kuu soo saaraya. ama ganacsi baad abuuratay, ganacsigaasi dhaqaalo buu kuu soo saaraya. ama saamiyo iyo shares baad samayday, dhaqaalo bay kuu soo saarayaan. sidaa daraaddeed qoraagu wuxuu nagu dhiirigelinayaa halkan inaan wax maal gashano, laakiin waxyaabahaas aan maal gashanayno waa inay noqdaan wax lacag soo saaraya. tusaale buu leeyahay haddii aad baabuurka raaxada gadato kale investment yaad samaysay, laakiin baabuurka raaxada wax kuu soo saaraya. sidaa daraaddeed markaa qoraag waxaa nagu dhiirigelinayaa inaan waxyaabaha dhaqaalaha soo saaraya aan maalgashi fiican ku samayno. cashirka saddexaad ee halkan aan ka baranayno waxa weeyaan buuggan ha ka baqin guuldarrada. qoraag waxa uu leeyahay si aad dhaqaalo u samayno waa inaynu markasta aynu guuldarrooyin aynu ku dhacnaa, waayo buu leeyahay guuldarradu waa cashirada ugu wanaagsan ee markaa laga barto guusha. sidaa daraaddeed markasta aad guuldaraysato waa markasta buu leeyahay u dhowdahay guushii. sidaa daraaddeed markaad maalgashi iyo dhaqaalaha wax ka bedelaysid waa inaadan ka baqin guuldarro wax la yidhaahdo. cashirka shanaad ee buugan ka baran karnaa waxa weeyaan inaynu kala saarno waxa loo yaqaano hantida iyo qarashaadka. qoraag wuxuu leeyahay labadan qodob dadku aad uma kala fahamsana. hanti maxaa la yidhaahdaa, qarashaad maxaa la yidhaahdaa. hanti buu leeyahay waa wax kasta oo jeebkaada wax soo gelinaya, dhaqaalay ku soo gelinayaan. halka wuxuu ku leeyahay marka qarashaadku yahay waxyaabo badan oo markaa adiga jeebkaada lacag ka saaraya, waxba aan ku soo gelinaynin. sidaa daraaddeed buu leeyahay markaa dadku qarashaadka ay aad ugu dadaalaan, laakiin hantida inta badan ma garanayaan. marka halkan waa inaynu ka fahnaa marka aynu xoogga saarnaa wax kastoo dhaqaalaheena kor u qaadaya ee waxna soo gelinaya iyo waxyaabaha dhaqaalaheena jeebkeena wax ka bixinaya. taa waa inaynu aad u kala fahamsannahay. cashirka lixaad buuggu wuxuu inoo sharxayaa uu nagu dhiirigelinayaa inaynu fahanno oo aynu nafteena u sheegno in cash flow waxa loo yaqaano ay tahay wax muhiim ah. cash flow baa la yidhaahdaa waa isku darka lacagaha adiga ku soo gala iyo lacagaha kaa baxa. marka cash flowgu aad bay muhiim tahay buu leeyahay managementigeeda iyo markaa ka warhaynteedu. si guud cash flowga saddex baa loo qaybiyaa buu leeyahay. cash flow positive ah oo ah marka lacagta adiga ku soo gasha iyo lacagta adiga kaa baxda ay badan tahay lacagta adiga ku soo gasha. tusaale $500 mushaar ku qaadataa, lacagta lagaa ran waa $300. 300 iyo 500 markii la kala jaro 200 oo faa'iido ah ku soo hartay. nidaamka noocaas waxaa la yiraahdaa buu leeyahay cash flow positive.
cash flow negative jira buu leeyahay waa marka mushaarka iyo dakhliga adigu soo galaya iyo dakhliga ka baxaya uu badan yahay dakhliga ka baxaya tusaale 500 aad ku shaqeysaa 500 markii aad bixinayso 600 aad bixisay $100 oo marka oo deyn ah ama dheeri ah ayaa mushaarkaadi marka raaca marka saddexaad nooca saddexaadna waxa la yiraahdaa neutral cash flow oo ah marka dakhligaada iyo waxyaabaha aad bixinayso marka ay isku dhigmaan 500 ayaad mushaaraha u soo qaadatay dib aad u bixisay markaas waxa la yiraahdaa buu leeyahay neutral cash flow marka waa inaan aad u kala fahanaa buu leeyahay cash flow qaabka uu shaqeeyo ilaa saddex nooc ayuu u kala qaybsamaa ama u shaqeeyaa cash flow-ga kan kood waxa la yiraahdaa operating cash flow waa dakhliga ganacsiga ka soo galay buu leeyahay iyo kan ka baxaya ee sida maalinlaha ganacsiga marka u soo galay ama uga baxaya laba buu leeyahay investing cash flow waa loo yaqaana waa cash flow-ga aad wax maalgashi ku sameynayso ganacsiga aad ku abuuraysid marka saddexaad buu leeyahay cash flow financial cash flow waa loo yaqaana buu leeyahay waa dhaqaalaha adiga haysatid laakiin u baahan tahay marka inaad intii meel lacagtu isku oolaan lahayd inaad samayso invest ama inaad samayso financial inaad soo waqti saami ah ku gado kale ama inaad deyn ku bixido kale taas loo yaqaana buu leeyahay financial cash flow waa inaad yani cash flow maaliyadeed ayaa loo yaqaana marka halkan waxaan aad ugu fahmaynaa marka qoraal aad nagu dhiiri gelinaya inaynu fahanno marka dhaqaalaha lacagta caadiga ah soo galaya managementigeeda iyo qaabka aynu ugu guuleysan karno cashirka toddobaad ee buuqa aan ka baranayna waxa weeyaan qoraagu waxa nagu dhiiri gelinayaa marka aan shaqaynayno ee shaqaale aan nahay inaynu u shaqayno inaan wax barano laakiin buu leeyahay ma wanaagsana inaad u shaqayso si aad lacag u hesho sababtoo ah marka aad u shaqayso si aad wax u barato cilmi iyo aqoon badan baa ku kordhaya cilmi iyo fara badan oo dhanka shaqada ah iyo sida shaqada loogu guuleysto iyo sida shaqada loo abuuro iyo qaabka shaqaalayaasha u shaqeeyaan iyo sida loo manage gareeyo iyo sida khilaafyada loo xaliyo cilmi fara badan baad ka faa'iideynaa buu leeyahay marka shaqaynaysid aad wax ka baranaysid laakiin haddii aad lacag kaliya u shaqaysada buu leeyahay lacagtii baa soo gelaysa laakiin wax cilmiya ma yeelanaysid hadhowdiina markaad investors aad samaysato oo ganacsi aad abuurato ganacsigaada ma dhaqaaji kartid sidaa daraaddeed marka waxaan ugu dhiiri gelinayaa marka aan shaqaynayno waa inaynu qaabka aan u shaqaynayno iyo fikirka aan ku shaqaynayno waa inuu noqdaa mid wax aan ku baranayno laakiin waa inaan u shaqaynin si aynu lacag u helno oo kaliya cashirka 8 ee buuga aan ka baran karnaa waxa weeyaan qoraal wuxuu nagu dhiiri gelinayaa inaynu nafteena u shaqaysano halkii aynu u shaqayn lahayn dad kale halkan qoraal wuxuu kala jeedaa marka noloshaada buu leeyahay intaad 30 sano ama 40 sano aad shaqaale ahaan lahayd waxaa ka wanaagsan inaad naftaada u shaqaysid waa in adiga oo shaqaynaya oo shaqo meel ka qabanaya bilcagsi waa inaad ganacsi abuuran kartaa oo aad ku fikiri kartaa ideolojiyadaas sidaa daraaddeed marka naftaada u shaqeey buu leeyahay ee cid kale u shaqeysaahi noloshaada oo dhan ma wanaagsana cashirka 9 ee buuga ka baran karnaa waxa weeyaan ka faa'iideysiga canshuuraha inaynu ka faa'iideysano canshuurta wax loo yaqaano maadaama canshuurna laga qaadayo buu leeyahay waa inaynu aad u fahamsanahay nidaamka canshuuraha iyo sida canshuurta laftigeeda dhaqaale looga sameeyo tusaale buu leeyahay haddii tusaale oo kale 5 ganacsi aad leedahay waxaa imaanaysa buu yiri canshuurtaada in qiimo dhimis lagu sameeyo taasna faa'iido ku qabtaa sidaa daraaddeed marka waa inaynu marka canshuuraha nidaamka qaabkaas oo kale buu leeyahay inaynu qiimo dhimis aan ku sameeyno kale waa inaynu marka aynu uga faa'iideysanaa ama tusaale buu leeyahay inaynu share badan sameysano ganacsiyo fara badan baynu la heshiinaynaa kadibna canshuurta si guud baan u bixinaynaa canshuurta si guud aan u bixinayna buu leeyahay waa inaynu marka qiimo dhimis aynu ku sameeynaa si canshuurta marka uga faa'iideysano cashirka 10 ee buuga aan ka baranayna waxa weeyaan lacagtaada xakamee buu leeyahay qoraaga dhaqaalaha adigu soo galay buu leeyahay waa inaad u samaysaa list u yeel bishan maxaa ka baxaya maalintan maxaa ka baxaya toddobaadkan maxaa ka baxaya waa inaad garanaysaa buu leeyahay lacagtaada meesha ay u socoto iyo meesha ay ku baxayso sidaa daraaddeed marka list samaysa buu leeyahay si aad lacagtaada u xakamayso inta bishi aad bixinaysana ay tahay marka mid adiga aad ka warhaysid oo marka aad u qoontaysay cashirka 11 ee buuga aan ka baranayna waxayaan qoraal wuxuu nagu dhiiri gelinayaa inaynu saaxiibo yeelano
maadaama aan dhaqaale investment aan samaynayno qoraal wuxuu nagu dhiirigelinayaa marka dadka saaxiibada wanaagsan ee marka arrimaha anaga aan qabanayno aqoon iyo xeel dheerid fara badan u leh waa inaynu la saaxiibnaa buu ku leeyahay si aynu cilmi iyo aqoon marka u korsano tala iyo fikirna marka inoogu soo beeriyaan cashirka 12 ee buuga ka baran karna waxa weeyaan qoraal wuxuu ku leeyahay maalgelinta guryuhu fursad weyn waayo inaad guri iibsatid kadibna buu ku leeyahay guriga aad kireysid waxa ay ka kaalmeynaysaa buu ku leeyahay in dakhli joogto ah uu ku soo galo tusaale buu ku leeyahay marka leh inaad guri iibsatid guriga aad ka bixiso tusaale kale 15,000 ka bixisay gurigiiba iibisay buu ku leeyahay 20,000 baad ka bixisay $5,000 faa'iido ah marka ku saaran marka guriga fursadaha maalgelinta guryaha buu ku leeyahay waxa weeyaan jaanis aad u weyn waayo buu ku leeyahay haddii aad awoodaysid waa inaad xoog ka saartaa cashirka 13 ee buugaan ka baran karna waxa weeyaan ha sugin buu ku leeyahay ilaa aad wax walba baratid qoraagu halkan wuxuu nagu dhiirigelinayaa wuxuu leeyahay dhalinyaro fara badan baa jirta dhalinyaradaasi waxay jecel yihiin buu ku leeyahay intaysan ganacsi abuurin ka hor inay wax bartaan oo waxyaabaha ay sameynayaan barasho fiican ku sameeyaan taa wuxuu leeyahay waxay ku kaliftaa in waqti fara badan uu ku baxo wixii ay bilaabi waayaan uga caajisaan si aad daraadada buu ku leeyahay marka si aad investment iyo marka qof dhaqaale ahaan kore aad noqoto waa inaad shaqada bilowdaa buu ku leeyahay shaqada marka aad bilowdid ee gudaha marka aad u gashid inta aad safarkaada maaliyadeed aad ku jirtid waxyaabo fara badan bar doontaa buu ku leeyahay si aad daraadada marka ha sugin inaad wax walba baratid بالعكسي adoo wax baranaya hadana safarka bilow oo ganacsigaada abuuro oo albaabka furo ganacsiga marka abuurtay kadibna waxyaabo fara badan baa wax ku leeyahay qoraagu aad baran doontaa inta safarkaada maaliyadeed marka aad ku jirtid cashirka 14 ee buuga ka baran karna waxa weeyaan qoraagu wuxuu nagu dhiirigelinayaa marka inaynu maskaxda ku hayno xisaabaheena lacagtaada buu ku leeyahay ku soo galaysa iyo lacagta ka baxaysa iyo sababta ay kaaga baxayso waa inaad maskax ahaan aad la socotaa buu ku leeyahay haddii kale waxay imaanaya lacagta in jeebkaada ka baxdo meel ay ku baxdo aad garanaynin marka wacyigaada iyo fahamkaadu ha soo jeedo cashirka 15 ee buuga ka baranayna wax weeyaan maskaxdaada kobci buu ku leeyahay aqoon badan yeelo xirfadahaada kordhi wax akhriskaada kordhi baaritaanadaada kordhi nolosha wax ka baro wacyiga aqoontaada buu ku leeyahay maskaxeed waa inaad markaas aad kordhisaa cashirka 16 ee buuga aan ka baran karna waxa weeyaan ka faa'iideysiga deynta wanaagsan qoraal wuxuu ku leeyahay halkan waa inaynu deynta ka faa'iideysanaa waliba deynta uu leeyahay laba loo qaybiyaa deyn wanaagsan iyo deyn xun deyn wanaagsan buu ku leeyahay tusaale bangi baad aaday bangigii lacag baa ka soo dansatay kadibna lacagtii guriga ku gadatay gurigaasi buu ku leeyahay oo ku shaqeynayaa dakhli joogto ah ayuu ku soo gelinayaa bilcagsi bangiga deyn ka soo qaadatay lacagtii aad soo qaadatay waxaad ku maalgelisay buu ku leeyahay baabuurka raaxada kadibna waad baabuurkii baad wadataa waad soo baashaalaysaa wax dhaqaale kuma soo gelinayo deynta noocaana buu leeyahay waa deyn aan wanaagsanayn sida daraadid marka deymaha wanaagsan buu ku leeyahay ee dhaqaaleena kor u qaadaya waa inaynu xoog ka saarnaa bilcagsina waa inaan ka fogaanaa buu leeyahay deynaha xunxun ee markaynu deyn soo qaadano oo aynu wax ku maalgelino waxyaabahaas aynu maalgelinayna haddaysan waxba soo saaraynin deynta aan soo qaadanay deyn xun bay noqonaysaa cashirka 17 ee buuga aan ka bari karna waxa weeyaan yaree qatarta adigoo markaa wax baranaya ka hor qoraagu halkan wuxuu nagu dhiirigelinayaa haddaan rabno inaan ganacsi abuurno ama aynu investment aynu samayno inaynu marka hore xoogga saarno wax baarid shaqada aynu qabanayno iyo waxa aan rabno inaanu furno ama ganacsiga aan rabno inaanu maal gashano waa inaynu baaritaan ku sameynaa buu ku leeyahay taasi waxay naga saacidaysaa buu ku leeyahay in markaa aan yarayno qatartii halkii anagu aanu caba aan baarin iyo anagoo su'aalo fara badan aan isweydiinay halkii ganacsiga aan ka furi lahayn waxaa ka wanaagsan buu ku leeyahay ganacsiga aan furayno waa inaynu marka hore baaritaan badan aan ku sameynaa ganacsiga nooca uu yahay macaamiisha wax ku soo kordhinayaa baahi loo qaba ma yahay su'aalo fara badan buu ku leeyahay inaan isweydiinaa cashirka 18 ee buuga aan ka baran karna waxa weeyaan qoraagu wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaynu samaysano yool maaliyadeed ganacsi baynu abuuraynaa waa inaynu nafteena aynu marka u sharaxnaa buu ku leeyahay inta cadad ee lacag ah ee aan rabno inaan samayno iyo waqtiga aan rabno inaan ku samayno iyo qaabka aan rabno inaan ku samayno
balse wuxuu ku leeyahay haddii ganacsiga aad furto bilaa hadafna aad tahay inta lacagta aad doonaysa aad garanaynin waqtiga lacagta aad doonaysa aad garanaynin halkaas wuxuu yiri waxa ka imaanaya inaad ganacsigaada uu furan yahay oo shaqeynayo laakiin dakhliga ku soo galaya iyo inuu hoos u socdo inuu kor u socdo marka inaad kala garanaynin sida daraaddeed buu ku leeyahay marka yool maaliyadeed samay si marka ganacsigaadu uu ku dhiirigeliyo casharka 19 ee buugan ka faa'iidi karna waxa weeyaan qoraal waxa nagu dhiirigelinayaa inaynu ka faa'iideysano waxtarka saacadaha hore ku leeyahay mar kasta oo adiga oo dhalinyaro ah ama da'yar ah aad invest samayso waa mar kasta oo dhaqaale badan aad samay doonto haddii maanta ku leeyahay adoo 20 sano jira ama 22 sano jira ama 23 sano jira haddii aad dhaqaale iyo investment aad samayso 40 sano buu ku leeyahay maalinta aad gaartid ganacsigaasi oo ganacsi awood leh buu noqon doonaa sidaa daraaddeed marka wuxuu nagu dhiirigelinayaa mar kastaba da'deenu xilli hore markasta aynu investment samayno waa markasta aynu gadaal ka faa'iidi doono cashirka 20aad ee buugga aanu ka baran karna waxa weeyaan wax ka baran buu ku leeyahay taajiriinta dadka taajiriinta ah waa inaynu wax ka baranaa qaabka u fakarayaan qaabka dhaqaalaha u abuuraan buugaagta ay akhriyaan investment iyo heshiisyo ay sameeyaan waxyaabahaas oo dhan buu ku leeyahay waa inaynu ka baranaa marka muuqaaladooda daawo buu ku leeyahay talooyinka ay bixinayaan aad u dhageysan buu ku leeyahay buugaagta laga qoran buu ku leeyahay aad u akhri warbixinada iyo wargeysyada arrimaha taajiriinta ka hadlaya buu ku leeyahay aad u dhageyso waa inaad markaa taajiriinta aad wax ka barataa dhammo uu ku leeyahay dadka taajiriinta qaabka u fakarayaan aad baratid waa markaas adigana wadadii aad qaadaysid cashirka 22aad ee buuqa ka baran karna waxa weeyaan ha noqon buu ku leeyahay nin mushaar kaliya ku tiirsan shaqo kaliya buu ku leeyahay qoraagu inaan ku tiirsanaato ma wanaagsana sidaa daraaddeed marka waa inaad abuurtaa buu ku leeyahay ganacsi yar yar si markaa dakhligaadu markaa uu u korco laakiin buu ku leeyahay haddii aad mushaar oo kaliya ku shaqaysatid waxa imaanaya buu ku leeyahay inaad dakhligaadii uu hal il oo kaliya marka uu ka noqdo sidaa daraaddeed marka inta aad mushaar ku tiirsanaan lahayd buu ku leeyahay qoraagu waa inaad samaysaa inaad ganacsiyo kala duwan ee yar yar aad marka invest garayso oo marka aad maalgashi ku samayso cashirka 22aad cashirka 22aad ee buuga ka baran karna waxa weeyaan maskax furan ku noolaa buu ku leeyahay qoraaga maskaxdaada markaas ha furnaato fursadaha waa inaad arki kartaa fursad kastaba waqtigeeda buu yiri hal mar bay ku imaanaysaa isla markiiba ku dhaafaysaa sida daraaddeed marka fursadaha noloshaada way ku soo maraya waa inaad marka indha furan iyo maskax furan waa inaad ku eegtaa بالعكس بيقول لي هذه مسكحة ويسا فرنين جانس كا قدافي دونا عد كلا مركا كافة إيدي سدونتا عشركة سدحي لباتناد أبوك أنك باركرنا وحويان قرار وحن نقول يريقلنا يا مالقشيقو إنو يهي وقتي دير قرار وحلقا وحن لي هاي dadkii qaar baa waxay sameeyaan waxbay maal gashadaan laakiin wixii ay maal gashadeen buu ku leeyahay dhaqaale fara badan bay ka waayeen maxay sameeyaan buu leeyahay waa iska iibinayaan tusaale share uu qofka iibsaday sharkiiba dhaqaale soo gali waayay kadib uu niyajabaya kadibna sharkii uu iska iibsanaya kadibna qofkii uu iibiyay baa dhaqaale ka helay buu ku leeyahay maal gasho buu ku leeyahay waqti buu u baahan yahay marka waqtiga waa inaad siisaa haddii aad maanta wax maal gashato bilcagsi ma isla markaa inaad si degdeg ah aad maalgashiga oo aad faa'iido u soo saaray maaha buu ku leeyahay waa inaad waqti siidaa muddo aad sugtaa si markaa waxyaabii aad maal gashatay uu kuugu sameeyo dhaqaalihii markaa adiga ay qarabta uu kuu soo saaro cashirka 24aad ee buuqa ka baran karna waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay qoraagu si caqli leh u maaree waqtigaada buu ku leeyahay waa wax aad muhiim u ah sida daraaddeed marka waqtigaada meesha aad ku bixinayso iyo cidda aad ku bixinayso iyo sababta aad u bixinayso waa inaad ku caddahay marka waqtigaada buu ku leeyahay wax badan ku baro xirfado ku yeelo aqoontaada ku kobci garaadkaada ku kobci maxaa la yidhaha arrimaha maaliyadda marka ku kobci ku leeyahay marka qoraagu waqtigaada ka warhay meesha uu ku baxayo marka aad marka waqtigaada si caqli leh buu ku leeyahay qoraagu u maaray cashirka 25aad ee buuqa ka baran karna waxa weeyaan qoraagu wuxuu halkan ku xusayaa inaynu ka fogaano deynta aan loo baahnayn deyn aan loo baahnayn buu leeyahay mar alla markaa soo qaadatid dhibaatada ganacsiga adiga buu kugu tahay sida daraaddeed marka deymaha aad soo qaadanaysa buu leeyahay ha noqdaan deyn loo baahan yahay waqtigeeda loo baahan yahay waxyaabaha deynta loo soo qaadanayana waa inay noqdaan buu leeyahay wax soo saar yeelan kara cashirka 26aad ee buuqa ka baran karna waxa weeyaan qoraagu wuxuu ku leeyahay marka waa inaynu kala fahanaa farqiga u dhaxeeya hantida
iyo liiska xisaabaadka. qoraa wuxuu leeyahay halkan ganacsigaada dhaqaalaha kaa soo gelaya waa inaad aad markaa aad u fahamsan tahay liiska xisaabaadkaada, lacagta aad bixinayso, lacagta ku soo gashay, lacagta kaa baxaysa, hantida adiga kugu soo haraysa, waxyaabahaasoo dhan buu ku leeyahay waa inaad u fahantaa. dadka qaar buu ma garanayaan hantida ay haystaan, ma yaqaanaan. marka wuxuu leeyahay ganacsiga xisaabaadkiisa inaad baratid oo aad la socotid aad bay muhiim kuuga tahay buu ku leeyahay. cashirka 27aad ee buugaan ka baran karna waxa weeyaan qoraa uu nagu dhiirigelinayo waa inaynu samaysanaa ama aynu yeelanaa niyad wanaagsan, waa inaan ku dadaalnaa. halkan qoraagu wuxuu ku leeyahay qofka markasta oo niyad ahaan uu wanaagsan yahay waa markasta qofka uu xasiloon yahay. markasta buu ku leeyahay qofka haddii tusaale kale aad ganacsigaadi khasaaro uu kusoo galo oo kale halkii ay ka niijabi lahayd waa inaad naftaada aad tiraahdo buu ku leeyahay waxbaan ka bartay ama cashir baynu ka bartay shaqadan. sidaa daraaddeed marka niyadda wanaagsan aad bay muhiim u tahay. islaam ahaan xitaa marar fara badan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nagu dhiirigeliyey inaynu niyad wanaagsan aynu wax kasta aan ku qaabilno. sidaa daraaddeed marka niyadda wanaagsani waa furaha guusha. qofka ilaahi subxaana wa tacaala wixii ka rajiye buu helaa. ina dhanni cabdi bi waa xadiis qudsi waasi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay marka uu ku oranayay addoonkaygu marka waxaan ahaa buu leeyahay ilaahay qof asagoo sida uu iga malaysto. marka ilaahay wax khayr ka rajisatid niyadaadana marka ay noqoto mid wanaagsan ganacsigaada marka uu ku kabcaya. cashirka 28aad ee buugaan ka baran karna waxa weeyaan qoraa wuxuu ku leeyahay hantida ugu weyn aad haysato ma aha hantida jeebkaaga ku jirta, ma aha hantida akoonadaada ku jirta. hantida ugu weyn buu ku leeyahay qoraagu aad haysataay waa maskaxdaada. sidaa daraaddeed maskaxdaada aad u daryeel. waxyaabaha maskaxdaada dhaawacaya, waxyaabaha maskaxdaada dhibaatada ku waxyaabaha maskaxdaada hoos u dhigi kara tayadeeda iyo waxyaabaha maskaxdaada korin kara waa inaad markaa kala fahamsan tahay. qoraa halka wuxuu lagu dhiirigelinayaa wax kastoo maskaxdeena kor u qaadi kara waa inaynu xoogga saarnaa. haddii ahaa la inaynu xirfadaha barano, haddaynu ahaa lahayd marka inaynu aqoon yeelano, haddaynu ahaa lahayd marka inaynu tajribo iyo marka tijaabooyin samayno. waxyaabaha wuxuu ku leeyahay maskaxdaada waa hantida ugu weyn ee marka adiga haysatid. sidaa daraaddeed marka iyada inaad kobcisid ayaa ka muhiimsan buu ku leeyahay waxyaaba fara badan marka inaad xoogga saartid. waayo buu ku leeyahay dad ganacsi hadda abuurtid ganacsigana maskaxdii iyo garaadkii ganacsiga ku kulna aad haysan buu ku leeyahay borobalan baa meesha imaanaya. sidaa daraaddeed marka ganacsigu 80% waa mindset, waa garaad maskaxiyan. waa 20 soo harkada baa waxay tahay skill. marka haddii ganacsi aad furto ganacsigiina skillkii aad leedahay laakiin garaadkii aadan lahayn ganacsigaada markaa ma guuleysan karayo. sidaa daraaddeed marka maskaxdaada kori, hantida ugu weyn aad haysata in ayada tahane taa markaa waa inaad u fahamsan tahay. cashirka 29aad ee buug aan ka baran karna waxa weeyaan qoraagu wuxuu ku leeyahay baahiyahaada kala horumari. dadka faqiiriinta buu leeyahay ma yaqaanaan waxyaabaha si rasmi ah looga baahan yahay waxyaabaha kale. halka buu ku leeyahay dadka taajiriinta ay yaqaanaan waxyaabaha baahiyahooda iyo sida markaa baahida kale uga muhiimsan tahay. sidaa daraaddeed buu ku leeyahay qoraagu wuxuu nagu dhiirigelinayaa halkan inaynu baahiyaheena aynu kala hormarino oo baahiba ay ka weyn tahay inaynu markaa ka hormarino ayadana markaa aynu fulino oo aynu xalino. markaa cashirka u dambeeya ee buuggan aan ka baran karna waxa weeyaan qoraagu wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaan si xoog leh u barano suuqyada dhaqaale. suuqa buu ku leeyahay qoraagu aad u fahan sidee suuqa loogu guulaystaa, caqabadaha suuqa maxay yihiin, suuqa maxaa looga baahan yahay, ganacsiga iyo suuqa sideebaa la isku waafaqsiiyaa ama la isku waafajiyaa. suuqa buu ku leeyahay aqoonta suuqa dhaqaalaha xoogga saar inaad baratid. 30 cashir waa 30 cashir ee aan leeyahay buuggan Rich Dad iyo Poor Dad ee uu qoray qoraaga dalka Mareykanka u dhashay loo yaqaan Robert Kiyosaki. waa buug runtii aad muhiim u ah oo aan isleeyahay dhalinyarada wax badan buu ka bedelayaa. sidaa daraaddeed 30 cashir ayaan ka soo qaatay, waana 30 cashir inaan isleeyahay waa 30 cashir ee ugu muhiimsan ee ku jira buuggan. sidaa daraaddeed saaxiibayaal aad baan idinkugu dhiirigelinayaa inaad ganacsigiina abuurataan, maalgashina marka aad samaysataan. xalqadani maanta ee buuggan Rich Dad iyo Poor Dad ee buugmaal podcast-ina insha Allah halkaasaan kusoo gabagabaynayaa. sidaa daraaddeed marka kale ku leeyahay saaxiibayaal safarkan kusoo dhawaada insha Allah. saaxiibadana muuqaalka u sii sheer garay
inaad kanaalkan kusoo biirtaan. macno fara badan bay insha allah inoo samayn doontaa. waxaan rajeynayaa insha allah inaan aqoon iyo cilmi marka inaan kala kororsan doono haddii ilaahay subxaanahu watacaala nafta uu inoo ogolaado. wabillahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.